arkaysin waxaan joognaa maalintii labaad aan soo booqannay Naasir Maxamed Murshid gurigiisaan joognaa safar yar kadib ilaahay subxaanahu watacaala waana soo nabadgeliyey oo markaas waan imaanay laa xawla lana walaa quwata ilaa billah awooddeena iyo xeeladeena midna kuma imaanin jacayl aan aaba Naasir Maxamed Murshid aan u qabno iyo reerkiisa iyaan usoo booqannay aan usoo ziyaaranay laba isbuuc ka hor inay tahay jecelahay ama 3 isbuuc aan soo booqannay aaba Naasir mar kasta oo aaba Naasir aan u imaano saad arkaysiin waaye oo aabo aad u jecel dadka iyo yacni duyuufta ama martida aad u jecel weeyaan maasha allah allah barakeeyo ciyaalkan aragti uma baahnin inaan aragno maxaa yeelay hore ayaan u aragnay hadda sidoo aaba Naasir Maxamed Murshid uu sheegayo waxa xanuunsan waa 3 ciyaal san horena idinku soo gudbinay waa Ilaaf Raaniya iyo Maxamed ayaa xanuunsan falillahi alhamdu wa shukru xanuunka iyo caafimaadkaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa marka loogu mahad celinayaa waan wax u baahan yani in markasta lagu shukriyo rabbi subxaanahu jalla wa ala waxaan u soo booqanay maalintii hore 2 isbuuc ka hor walaalo muxsiniin ah oo na soo wakiishay يعني سببتودا halkan ku nimid si aan feedback idinku soo celiyeen ama fariinta idin soo gudbiyay amaanada idin soo gudbiseen inaan u soo gudbiyo aaba Naasir Maxamed Murshid sababta aan ka yani muuqaalada ku sameynayno macnaheedu ma ahan inaan yani muuqaalada aan iska sameeyno oo kaliya laakiin adduunka maadaama uu aad u xumaaday waxa aad u fiican wax walba si muuqaal loo arko harna marka 2 su'aal 3 su'aal aan weydiino aaba Naasir Maxamed Murshid ilaahay oo ay tahay su'aalahaasi يعني maalmo horaan soo booqannay waxaan ka sheekaysanay sida xaalku uu yahay iyo gurigiisa loogu nool yahay oo rayd wixii guriga loogu nool yahay waan aragnay wax kasta nimcada ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa markaas ka mid xarbi inaan weydiino aaba Naasir Maxamed Murshid ciyaalkan 3 ay xanuunsanay xanuunka ku dhashay in ay daawo qaataan iyo inay qaataan daawo ma qaataan daawo aan qaataan jirida ay qabaan xanuunka ay qabaan daawo loogu talagalay oo la idin siiyo ma jirta waxaana la yiri uma baahna intaan oo yani meeshii wadankii aan ka soo baxnay doktoradii xagga joogeen waxay la yireen uma baahna jiridooda waxay ku socotaa maskaxda waxay u baahan yihiin qalmiinta u baahan exercise u baahan yihiin wax daawo oo hadda la siiyo ma jirto ilaa xanuuno kale inay yimaado mooyaane xanuun هرقب أو إحساسه أي على الحنون وإحساسه دوالس marka daawada waxay leeyihiin xanuunkan daawo ma lahan may ka wada macna si daawada wadanka gudihiisa ma laga helay qabo ma laha daawo ma laha xanuunkan daawo sidiisa ma laha ma laha waa dadka doktoradii wadankii markii aan joognay oo yemen leeyihiin haweenka إذا مقلس أبو ناصر محمد وحلو شيء دكتورة أما إسبتالة كويا وطن اليمن أنت بدل وكسر ولا واحد كسر شيئين إن حنون كان واحد دواء أنا اللوها عيابك الواحد كله ويدين دونا أركي سامبا سؤال يعني هري ما لو شيء أما دخلت ما شيئين حنون كحدي اللي دودي سودنا كلا جماعة حلو دي بدأ إن داول لو هيك رأيك فلقيها بإذا هذا إيه كحلوم الشيئين لكن waxay leeyihiin wadanka loo yahay loo qaado baahanyahay hortaan oo yani jilida ay qabaan maskaxda ay ka socoto in wadanka yahay oo mataqaana oo loo fiiriyo ما شاء الله صاحب ناصر محمد مرشد أتكلم مقاشين ودن اليمن أو كسونا واحد اللي هو يعني واحد دواء مركزي حنون كل وأنا معي إلهي سبحانه وتعالى لكن إلهي أكتسا لقى موين دواء زي مركز تويت الله حدي لكن سعرب كيسا كم وقته وضمان كان الله هرا الحنون كولا مصلحة دويدهم عن أقصنا أبو ناصر محمد مرشد إندونيسيا كنا لهاي وحنا كم إذا تك خحنتيجا ماشي جوجو وحرجب بدن كله عن رش النوع عن إن إسكبد الشو هي أداها سلا UNHCR يعني رجب بدن وكلها لكن رديدي يسوي حالة أما الله كله فتين حكومة يعني كتلس ودك مريكنك inkastoo ilaahay subxaanahu wa tacaala mar kasto raxmadiisu ay jirto aaba Naasir Maxamed Murshid waa abo u baahan mar kasto inuu u helo ciyaalkiisa yani garanaysa caawimaad iyo xaaladda noloshooda noocan iska bedesho waxaan aaba Naasir su'aal ka weydiin doonaa rajada uu ka qabo ciyaalkiisa oo soconayo inuu arko inkastoo aan aaminsanahay qalbigiisa inuu aad u fiican yahay sidoo kale hooyo nafiis oo ciyaalka dhashay ay tahay qof aad u qalbi fiican
ee qadarta alla iyo raxmadiisa ku kalsoon yihiin bal haddii uu muxuu rajaynayaa abanaasir haddii uu helo meelaha dibadda la sheegay in ciyaalka maslaxad loo helo rajada ama caafimaadka ilmihiisa uu ka qabo والله aslaadi dibadda aad hesho ويعني لقى يابا يعني من همي انا اقول لنا يعني لقى يابا يعني رجع امل يعني ماشي هيك موقته rajo meesha لقى يابا وصح إلهي سبحانه وتعالى يا قرآن كسبع كل يا لا تغنضوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم حريصة الله ما كستوي أنت ودريم كتعب يعني لنو سد عيال ودلي وحامسن رجدي سو سيدي أنا قلت هيدا في عنان هاي يسيجي تيسو في عنها إن كستو مر كستو أبو ناصر محمد مرشد وآد قناع سيء أنت داونيسا وحن شيء يا رحمة إلهي سبحانه وتعالى يقدر كيسه in ay ku qanacsanaadaan waxaa abanaasir maxamed murshid oo rajo badan ka qabaa insha allah inuu helo dhakhaatiir yani aqoon badan u leh xaaladan abanaasir maxamed murshid aniga idinla hadlayo iima soo gudbinin wax xanuun ah oo ciyaalkiisa ku saabsan ama ma ii ninka u yimid uu yidhi ciyaal baa iga xanuunsan ama noocaasa laakiin damiirka dadnimada iyo islaamnimada ayaa diidaya waxyaabaha qaar in markaasi indhaha laga qabsado waxaa banaasir maxamed murshid aan idiin sheegay inuu gurigan uu degan yahay kiro ku degan yahay waxaan weydiin doonaa su-aal ah guriga inta uu ku degan yahay lacagtiisa وهل مليان oo lacagta waddankaana insha allah 1 milyan oo lacagta waddankaana walaaliya waxay u dhigantahay lacag $100 wax yar dhiman waa ha ilaawin oo meesha ka saarin waxa iga dulbabanaya waa maruuxadda guriga qawoojisa sidoo kale waxaan hore idinkugu soo gudbiyey in ciyaalka ay noolaan karin ee siiga la-aantiisa ambaarka guriga qawoojisa waddankeennii baan ka soo tagnay waddan shisheeye baan joognaa aabba aan shaqaysanin aana foofin garanaysaay oo guriga iska fadhiya iyo xaaladda nololeed oo iska dareemi karta qofka hadduu caafimaadka qabo wax allaala wixii ka soo horbaxo ayuu markaa qaadanaya su-aashii ugu dambeysay haddii abanaasir maxamed murshid aan weydiino annagoo u baanayn wax su-aalin aan weydiino carruurtiin aragti dambe aan u baanayna horeyba aan u aragnay waxaan weydiinaa abanaasir maxamed murshid xanuunkan markii dhakhaatiirta ay la kulmeen asalkiisa waxa ay ku tilmaameen ama xaaladda sida ay ku bilowday u sheeg ma dabeelba maxaarad si kala ciyaalka loo helay والله يعني maxaan ku aragnay yani markaan dhaliba way ka muuqatay inay ciyaar xanuunsanayeen intii umashii loogu jira ka bacdi sanadkii yani cumrigooda inuu sii socda 2 jeer 3 jeer markii gaareen socod ma jiro yani waa la yaabay waa taajib 2 sano 3 sano markii gaar wax socdaa la waayay ها wax socdaa la waayay markaasaan orod aan galnay dictooradii min dictoor la dictoor sidii quraankii hataa sheekh hataa u weyna quraankii lagu akhriyo waxba hataa hadii indhihii yani loo soo kordhiy indhihii hataa waxaan kusoo bin qaliin baan kusoo bin saddexdoodii hadda indhihii way fiican yihiin alxamdulilah waxbay arkayaan wax dheer laakiin wax kama arkayaan saddexdood qaliin baa lagu siiyey ها indhaha qaliin baa lagu siiyey alxamdulilah indhihii waa ku najaxnay laakiin wax dheer wax kama arkayaan saad maqlaysiin waa banaasir maxamed murshid inoo sheegay saddexdan ciyaalba in indhaha qaliin lagu sameeyey aadba ka hor aan idiin soo gudbinay hadda waxyaabaha soke inay arkayaan laakiin wax fog aanay arki karin nimcada ilaahay ayaa ka mid tahay sida carabkiisa ka muuqato 3 sano markay jireen baa xanuunkaan lagu arkay waxaan rabbi weydiinaynaa subxaanahu jala wacala ilaahay subxaanahu watacaala isigaana xanuunka keena isigaana yani cudurka keena yani caafimaadka keena وحصورة النجم القرآن كجرت وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ربي إسيقا عدو دونك قسلية عدو دونك كأوهية ربي وربي قد دلا وح الله على وحد انت وحن نورن إسيقا ماريا عدو بسيطة دونك يكون ماريا وانتي يا قبدي ووريسي اللابات أن لا يلنا أبو ناصر محمد مشي أن نشوف بقولنا قولي جيسة waxaan insha allah tabaaraka wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynayaa maalin walbana ma tuso ciyaalka lacagahooda ku socdo rabbi waxba lama ahan agtiisa wax basiid ay ka tahay waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu iimaan saalixa na siiyo aan ku qanaano xukunka rabbi waxaan kusoo gabagabeynayaa abanaasir maxamed murshid oo saakii booqashadeen ugu weyn ay ahayd waxaan u sidaa fariin laysoo diray oo maraykan laga soo diray fariinta waxaa isoo diray nin la yidhaahdo cabdulqaadir cali cabdulle waa loo soo wakiishay isaga cabdulqaadir cali cabdulle oo ka mid ah rag ardaydeeda ah sida yani oo ii sheegayna macallin qur'aanka ah dalka maraykanka wuxuu cabdulqaadir cali cabdulle ii soo dhiibay lacag $200 ah
ayuu ii soo dhiibay wuxuuna ii sheegay lacagtaa dadka soo dhiibay inay ku jirto gabar oo weligeed aan ciyaal dhalin waxayna ka codsatay abanaasir inuu usoo duceeyo inuu ilaahay owlaad saalixa siiyo waxay kaloo ka codsatay inuu qur'aanka ilaahay u saqiro waxaa kaloo saddexaad ay codsatay jannada inuu rabbi geeyo oo watan aan wada jecelnahay rabbi dhammaantanada inuu jannada alla nagu bishaareeyo lacagtaasaa abanaasir maxamed murshid hadda aan guddoonsiinayaa markii $200 loo bedelo lacagta waddankan waxay u dhigmaysaa walaalayaal 2 milyan iyo yani 2 milyan iyo 2 milyan iyo 460 rubi ayay noqotay waxay soo martay xawaalada kale qalad dhacay soo diritaanka darteed kadib waxaan soo buuxinay marka 2 milyan iyo 500 waxaana ila fadhiya abanaasir maxamed murshid oo lacagtii aad iisoo wakiilateen baan rabaa inaan guddoonsiiyo waxaana feedback ama kaamirada u sameynaynaa si ay u qancaan dadkii iisoo dhiibay ammaanada inaan gudbiyey iyo in kale allahuma fashhad kaamiradu waxaa iska leh aadan kuu mahadcelinaya